qalin jibin baro Garta. oo east dhigtaan oo Menkero degan garta awardkan waxay u qoran tahay ilmihii oo leadership haastaan oo ilmihii tusi kara jidka saxda Garta. oo tusi karo inay role model ahaan karaan oo Garta. ilmihii fiican so sanadkan waxay doorsadeen ani waa uraya I'm very happy ina urayna gartay marka idaacadaha iyo waa laga soo saaray Soomaaliya ha idaacada oo newska Menkero waa laga soo saaray waraaqo newspaper yaal laga qoro oo Menkero ah marka hooyo abo joogeen Soomaaliya dadkii hooyo abo joogna qol waxay ahayd meel oo la ijaartay ala isku imaaday dareenkaaga ka waranaayish sidoo ahaa marka qaadanaysay awardka very nervous very nervous wax oo dad badan oo attention isina wali intaas ma helan marka ma ka hadashay misada ku qaadatay iyo macnaha qodba ma jeedisay meesha ma ka soo ma hadashay ha qodba ku soo jeediyay oo dhahay barashada oo thank you dhahay aniga oo dhahay populationka oo Minnesota oo Soomaaliyeed ku badan tahay ka hadlay iyo diversity inay tahay it means a lot from Martin Luther King oo nin imaado hadlaya oo senior peace oo to the black people in the United States degan so waxa dhahay inay barasho oo xoog oo wax fiican siisay okay marka dadka ku daawanaya dhalinyarada waxa jirta dafaca ah oo kula daa maxaa dhihi lahayd Aish maxaa dadkaas u soo jeedin lahayd what would you say to them I would say like make right choices jid fiican ina isartid bilaaga marka imaad jid fiican ta isaari weyse wrong crew la socotid dad xun la socotid easily jid xun oo fuuli kartaadi so always pay attention jidka ku socotid waxbarashadaadi ka waran marka see subjectiga jeceshahay anigu insha Allah sanadkan markaan qalin jibiyo waxa aada MSU Menkero jaamacada ku taasho waa gartay maxaa jeceshahay inaad barato Aish waxa jeclahay inaad barto engineering civil engineering inaad barto waa arrin aad u wanaagsan waa tahay waa ka sii gudbeynaa qaybta kale oo marka dhalinyarada ayaan u gudbeynaa inagoo marka ku soo laaban doona Aish sidaan sheegay dhalintan Soomaalida ah waa mustaqbalkii soo socday oo marka ama wadanka xukumi lahaa ama wadankan wax ka qabsan lahaa marka su'aalo badan ayaan weydiin doonaa insha Allah idinkana kaga faa'iideysanaysiin oo aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed marka inay ka faa'iideystaan Mucaad Rashiid ayaa kamid ah dhalinta Sufi Buzuri ayaa kamid ah iyo Maxamed Axmed oo intuba isku wada daa marka aan insha Allah waan weydiin doonaa waxyaabaha iyo barnaamijka ay wadaan anagoo marka mid u weydiin doona insha Allah hay'adda ama barnaamijka ay wadaan waa barnaamij dhalinyarada loogu talagalay magaca barnaamijka wadaan waxa la yiraahdaa brand new image waxa iska leh Sufi ka waran barnaamijka what is this program the program is about what's it called showing that youth can get together in a safe environment area and showing that they're good Somalians and we don't want the media to take over our programs. So what we're going to do is have positive events, have good things going for each other and help each other in our own group and hopefully we plan on making our group bigger. So we want the help of the Somali community, of the parents to help us get their youth into our program. So is this only Somalis, right? We're not just going after Somali, we're going after everybody that's a youth. But our main focus is the Somali because we want to change the image that was brought upon us from the local Somalians. Okay. Do you guys talk to the other communities like Somalis live in Owatonna or Rochester? We talk to Rochester and people that live in Owatonna, but we want to expand it to Minneapolis. We want to get young youth from Minneapolis to come and hear us out and join our events that we have. Oh, great! That's a good. So, who helped you? Who helped this organization? We have our advisor. His name is Bukata Hayes, and he is part of the Mankato Diversity Council, and he's a really good support. And we also have Reggie that's helping us from the Big Nine Conference. Okay, haddaan markaa idin fasiro ninkaas xoogaa Soomaaliga waa ku hadli kartaa Soomaaliya laakiin waa qadacsanaya wax yar marka hooyooyin iyo dad badan ku fiirsanaya insha Allah waqtiga dambe Soomaaliya ku hadli doontaa adigoo markaa si fiican uga hadli kartaa Soomaaliga Soomaaliya wax yar sida hadalka aad ku tiri Soomaali ma noogu sheegi kartaa waxa maxaad damacsan tihiin macnaha ujeedada maxay tahay wuxuu macasro wax waay si ilmiyaasho si wax xun subin si wax fiican subiyaan
inay wax fiican sameeyaan ها waa gartay waxaan u gudbayaa suufi waa kuu soo laabanayaa maxamed ayaan siinaya marka maxamed horta ku soo dhawo barnaamijkeena sidii suufi uu sheegay barnaamijkan waxaa la yidhaahdaa brand new image waa dhalinyaro Soomaaliyeed sidaan sheegnay oo isxilqaabay oo martaqaana raba inay dadkooda Soomaalida caawiyaan oo magacna u yeelaan marka muxuu yahay adigoo noo fasiraya marka brand new image-ka maxamed brand new image wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan uu ku saabsan yahay anaka bes ma nihin image ka xarbna abadina Soomaaliyeed oo dhalinyarada oo hadda Minneapolis joogo hadda waa maqashay shoorinka ka dhaco Minneapolis ilaa Soomaaliyeed isdidilayaan waxaaseeto waxa rabnaa inta oo sheegna dhalinyaradaasayto walaalaheen ay kana yihiin inta caawino hadda basketball tournament oo sameeyna oo waxaad wadiin basketball iyo arrimahaas aad wadiin ilmaha arrimahaas inta rabnaa basketball tournament oo sameeyna soccerna hadda waa sameeynaynaa insha Allah ilmaha yariiska xataa oo 7th grader to 8th grader xataa ayagana waxa rabnaa inta wax kale u sameeyna event kale basketball tournament ahaato soccer ahaato waxa rabnaa inta isku keen dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan gartay marka ujeedadiina waa inaad gaartaan oo aad martaqaana dadka Soomaalida siiba dhalinyarada inaad wax u qabataan waan gartay sida Yuusuf uu sheegay yaa ku jira martaqaana board member ma leedihiin yaa dadka kale oo ama Soomaali community yaa idin caawiya oo caawis yaa idin siiya idinka caawis ilmaha MSU ay jiro waxa kamid sheekh kala dhaho ugaale iyo waxa jiro Bukaaro oo iskoolkeena advisor-ka iyo waxa jiro kan maxamiga dadyaal badan kaasalayaashan iskoolka xataa waana caawiyaan waxa si too dhan oo nagu caawiyaan okay marka hadii waalidkii idin daawanayaan oo ma taqaana dad ficin ah oo da'diino kala ayaa jira oo iskoolaadka aada waxbarashada aada marka iyagana hadii ay rabaan programkiina inay ka mid noqdaan they want to join you guys what would you do what would you say to them actually they were welcome like anytime we man can program kan anaka ilmaha hadda soo karayaan sidoo kale hadda iskoolka graduateina program kan inta sii soconaya is going to stay forever ma garatay waa program soconaya waalidiyaashana if we contact them magacayaashooda email yaal anako dhan oo haysanay magacayaashoodii waxa soo iyo wixii rabaan intii sameeyaan hadii noo soo diraan we can help them out waxaan u gudbayaa معاد رشيد يقرأ هذا معاد رشيد وكترسن هي دلنيردان براندو ايمج ونا كقيب قادنايا برنامجيدا معاد كورن معناها سida uu sheegay maxamed oo kale iyo Suufi iyo Aash labadaba saddexdaba siday sheegeen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa u sameynaysiin inay maaragtay wax wanaagsan qabsadaan oo idinku daydaan wanaagiina waxa sameynaysiin marka basketballka iyo soccerkan wuu ku jira sida sheegteen marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mataqaana Mucaad Rashiid su'aasha ah xagga sharciga lowga fahmitaanka lowga sharciga Mareykanka dhalinyarada iyo waalidiinta iyo isfahamkoodana aad ayuu u yaryahay marka maxaa ku darsan lahayd arintaas maadaama dhalinyarada atiin oo rabtiin inaad wax qabtaan waxaan ku darsan lahay anaga groupkeena group oo kaliya dhalinyarada anaka oo soo paar badan ma lihin dadka gaarayna waa dadka anaga nabad ah taasoo koo loogana hadii anaga hadda basketball tournament ka arbina dhigna meesha gymka u ijaarinay first waa ina meesha aada asoo saxiixda ina adiga responsibility qaadanaysa koode labana ina ruux oo meesha ka shaqeeya maadaama oo hours oo ka badnaanayaan ruux oo meesha ka shaqeeya waa inuu meesha joogaa waa ina security joogtaa so as far as law is concerned dadka badana wax Mareykanka wax step qaadan kartid malaha without actually being in contact with the law, you know. Okay. So if it takes going to the guy at Mr. Nelson Allah منك مش جوجو هذا مش أصلك هذا أتجن مش إسك عادد مش بحر جلس أنا you have to rent out the gym you have to have food there you have to security guards and police officers and then on top of that you have to pay the people that ومش كشخين أنا ودك مش كشخين دونه وأنا عادي جابك كسب كديب تانو so log معناه هذا وحاول إنا عادي أسكيل على سا بحكي سوق أقل كرتا. So you have to get in contact with the people that are responsible for the thing you're trying to do, no? Okay. So that's a good thing. You guys are good. ودلنا في عناتين ولا يابو واي ماركتي قابك سيدا متقنا أغلقين حتى سدويها سيدا ماركتي وحسمين السين إن شاء الله دتك سوما على دلنا يرضى
iyo mataqaanaa waalidiintana in ay idinku daysadaan ayaan filaynaa insha allah waxaan rabaa inaan kusii weydiiyo Macaad parent waxaa jirto parents misunderstanding between parents and teachers and also Somali parents themselves they don't understand the culture, the American culture is very difficult to them to understand. What is your role, guys? What do you do to help and initiate with that? Alright, since Aisha day u sheegay anaga martiya kuna Mareykanka. Taas oo koow marka martida ruux marti u tagtid gurigiisa u tagtid waa ina xishmaadsan samaha. So anaga macallimiinta oo hadda iskuulka marka aadid badanaa waxaa jira program badan oo iskuulka naftigiisa lacal hadii student-ka cunugaadii adasha gabadh ama wiilahada hadii ka maqan yahay classka guriga la soo wacaa taas oo koow wicitaanka macnaha inuu waalidka inuu soo waco guriga ama waalidka inuu waco iskoolka hadii cunug uu ka maqan yahay iskoolka system ajira anaga iskuulkana ka hadlayno personally from my school system oo haduu 6 period oo cunugaa uu maqan yahay uu class ku jiro oo macalinka aan excused aha system automatic jiro guriga wacaya badanaa message duwan hadii ruux qabtana waa la hadlaano well, system on this person is missing from class, you know. Okay. That's what the system automatically is. Automatically, yeah. That's go. Labana, there's counselors in school jogo, or that you can call them at any time and talk to them about your student, you know. Meshu jogo, inu qalanjibina, inu classes kubasay, inu wax kasta. So as far as school or naftigis or trying to accomplish what they're trying to do, school hadu rabo inu kusoo gudbiyo newska وكسو جدود كنا لكن وأنا أتك أدرس واقع تدوانه وأنا ما تقولين أنت أسكف لي ساعة عنق أنت أسكف بحة ومش كسور جو هبين كتير كوسا نقض آدم أوجين اسكول إنه هذا إنك أنت دبعته وين that's a good question وأوصل لابن دونا إن شاء الله ونقول مركا قيب كهل دونا برنامجنا ومركا فرق قنين هذه أدونا أكسنتك والدينتا barnaamijkan ugu talagalnay iyo sidoo kale dadka barnaamijka ama macallimiinta daawanaya hadii rabaan in barnaamijkan ay ka qayb qaataan oo marka cilmi wanaagsan uu yahay iyo educational waxa markaan rabaa inaan weydiiyo sidoo kale ku hadli kartaa Ingiriisi daar doontid ama Soomaali taa doontid muhiimadda sida uu sheegay maxaa isleedahay waa loo baahan yahay waalidka xaqiisa sababtoo ah hadda barnaamijyada wadiin barnaamij yaab la waayo oo martaqaana dadka aad u soo jiidanaya sababtoo waxa jirto sidaan la socono dhalinyaradii Soomaalida ahaa qaarkood in they chose wrong path inay macnaha dhinac xun waxyaabo xun sameeyaan ama drug ku jiraan ama iskoolka ay drop gareeyeen so those macnaha dhalinyarada Soomaalida martaqaana rabaan inay idinku soo xirtaan oo idin yimaadaan idin taageeraan ama dadka Soomaalida waalidiinta xataa idin taageeraan if they want to come to you maxaad dhihilayd waalidiinta aniga waxa dhihilayn badankeeda ilmahaada adii ina badankeeda la hadashid oo mar isla baxdeen oo isla soo qadaysiin communication ka dhaxdiina iga dhaxayso kaas hadda wiilka iskoolka imaado guriga imaado hay iskoolka maxaa yeeshay shaqo aad wiilka gabadhii way soo noqdeen sports ay ciyaaraan communication ma dhacayso adii wiilkaada gabadhaada waxay yeelaan ma ogid markaas hadduu ilmi oo aabi iyo hooyada isla fadhiistaan isla sheekeystaan sheeko dhis oo iskool ka dhaxeenin oo ka dhaxayso tusaale iga sii marka mataqaana Aish Ali أبي دكان ولا مانكيرو كلها قرتي مانكيرو دكان كلها مانكيرو دكان كلها بدن كذا أنا ودكان وحلقو قضاء متقان دكان هي حلال واحد ولقو قضاء أنت لقو قضاء أبا أسكله أبا فاميلي جينا له so أنا بدن كذا أبي 24/7 على الجوجا مركز سكول كي ما أسجل الجوجا سكول كسب بحسها هراكت أسجل هذا المية ضد الجنا وحسن مركز سوي الأسجل هذا مركز أسجل هذا مسكعة مصنعينه